munaasabada furitaanka kalfadhiga saddexaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta ka qabsoomay xarunta Daawad ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere guddoonka baarlamaanka Jubbaland xildhibaano saraakiisha ciidanka qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo ururada bulshada rayidka intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Jubbada Hoose Axmed Maxamed Taqal iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Jubbada Hoose Faadumo Aadan Kateela iyagoona tilmaamay in baarlamaanka Jubbaland ay yihiin kuwa amaan iyo bogaadin mudan gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Mudane Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ku amaanay madaxda dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha inuu ka soo baxay shaqadii uu bulshada Jubbaland u hayay sida ninkii uu hadlayay ururada bulshada halkaan uu ka hadlayay ugu hadlinayay dadaalkii badnaa ee tirada badnaa ee madaxweynaheena uu galay midaanka hore Soomaaliyeed iyo isku xirkeeda ee asagana waxaan leenahay mar labaad waa loo qaleenaynaa waa waxaan hore baranay oo Soomaalida dhan ay ogtahay inuu yahay hogaamiye ummadeed uusan ahayn middan aan u dooranay loo qabta oo dowladda kaliyaanahan oo uu Soomaaliyeed u yahay insha Allah waa waxaan ku dooranay madaxweyne waa kuwa amaanayna waa kuwa qaleenaynaa Najm Ismaaciil Sufur baahinta Jubbaland Kismaayo.